عويا يانكيسا عدلو الوذاكيسا عويا يانكيسا عدلو الوذاكيسا روح بالضوخ على بكيسا إنو عاوكوشيسا لعوي صوماها wanaagsan daawadayaal waa markale iyo barnaamijkeena ciyaaraha oo xiligan oo kale aad nooga barateen bartaan YouTube-ka ku leenahay Cabdalool Sport qodob xiiso badan ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamij sawir la xaday oo muujinaya cid hanatay abaalmarinta Ballon d'Or ee caawil sugayo aan ku horeynay abaalmarinta Ballon d'Or ayaa caawil bixinaya xaflad lagu qaban doono magaalada Paris waxaana la shaacin doonaa xidiga helay codadka ugu badan kuna guuleystay abaalmarinta kubadda cagta نقول خميد صور لشيء إن لصاحة أيا ساعدي وقدم بيه وهايستا براه بالشدة وحنو موجنا يعني إن حد كرير أرجعتين ليون ميسي مرة راسي هنتي أبال مرنت هلاينا عادات كوجو بدن هل كحد كوسو حجا إفر فانتاك وهلاي عادات كوسو دوانا يا هاد مركي حلن سراو كترسن ورجيس كرير سبين إير ديبارتيفا وقرين ليون ميسي ومركي لحد وكوجو استبالن تورك وحنا هلا wuxuuna helay cod dhan 464 halka xidiga ku soo xiga uu helay 328 dhanka kale shabakada Talyaaniga laga leeyahay ee Mediaset ayaa daabacday sawir waxayna ku sheegtay inuu yahay sawir ay si qarsoodiga uga heleen waxayna cadeeyeen in Messi uu la tagay abaalmarinta ka hor inta la shaacin bacaawo waxyaabaha xiisaha leh waxaa kamid ah sawirkan lagu arkay in xidiga Cristiano Ronaldo uu galay booska afaraad isagoo helay codad ka yar Maxamed Saalax oo kaalinta saddexaad galay xidiga reer Egypt ayaa helay 197 cod halka kabtanka Portugiiska ee Cristiano Ronaldo uu helay 130 cod sawirkan ayaa waxaa ka muuqda liiska xidigaha 10 ah ee ugu sareeyay abaalmarintan kuna tartamay waxaana kaalinta shanaad soo galay Sadio Mane oo Liverpool u dheelaa halka Alisson oo goolka u qabtay Liverpool isna uu kaalinta lixaad galay Mbappe oo PSG waxa uu helay codad 5 halka uu kaalinta 7aadna uu fadhiyo xidiga De Jong ayaa kaalinta 8aad galay Delight-na uu ka galay kaalinta 9aad waxaana liiskan ugu dambeeyay xijam ee Eden Hazard si kastaba ha ahaatee caawa ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo cidda hanatay abaalmarinta bal waynu eegi doonaa daawadayaal إنتن برامج كانوا كلا كل ما ينام واحد يجتمع الناس سلامة السلام عليكم